daawade inta aan bilaabin ka hor haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xidhan kanaalka fadlan like saar muuqaalka si ay noogu noqoto dhiirigelin haddii aad ku cusub tahayna subscribe saar oo nagu soo biir gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaalada cusub السلام عليكم ورحمة الله markiiba waxay ku war heshay maxamed oo soo ordaya xagiisa ay u oroday wali teleefoonkii ay dhegta ku haysaa nimcana way ooyeysaa horta maxamed wuu nool yahay isaga laftiisii ayaa xiiqsan qof dhiilo sidiisii ayuu u soo ordayaa markiiba warkii ayuu ku taabtay nimco walaalkeed oo aad u xanuunsanaya ayaa magaalada la keenay gurigii aad deganeed ayaa imika la geeyey inamari tagsi ayaa inoo hayaayay soo carar wuu hor kacay way daba oroday baabuur u taagnaa ayay kursiga dambe isku tuurtay cagaha ayaa garaacaya in ay socdaan ayay rabtaa inay orodo ayay rabtaa xawaaraha baabuurka ayay saluugaysaa jid ay dadka iyo xayawaanku wadaagayaan ayay xoog ku dhaafayaan kun sawir oo kala nooc ah ayay maskaxdeedu istusaysaa midba midka kale ka xun yahay talow siduu yahay miskiinka yari miyuu dhiman rabaa nimco aan waco way ku dhufatay way la weyday telefoonkeedu wuu dansan yahay markasta oo ay kisinya u soo dhowaato garaaca wadnaha ayaa sii kordhaya maxamed ayay hadal kala quban ku bilowday jidka maad garanaysaa halkaas ka leexo inta aanay u tilmaaminba uu sii garanayaa goormuu arkay guriga way yaabtay maaha su'aal muhiim ah maanta way ka gudubtay isaga ayaa ku hagaajiyey guriga baabuurkii ayaa ku soo laabtay guriga hortiisa naxdin ayuu jidhka inta hoose qalalay way ku hagaagi kari weyday guriga maxamed ayaa soo booday daaqadda ka furay deedna degdeg guriga u galay cagta midig ayay dhulka ku horraysiisay walow ay jeclaan lahayd inay iska dhex fadhido baabuurka wixii ay alaab sidata ayay ka kacday shalmadda oo dhinac ka saaran albaabka daaradda ayay ka soo gudubtay qof keli ahi ma dhex joogo daaraddii weyneed ee dadku ku kulmi jireen maanta cidi ma dhex taagnaa mee maxamedkii ila socday ayay isweydiisay qolkeedii ayay ku soo dhowaatay isagoo aan wax shanqadh ahi ka socon way istaagtay haddana aayar dhaqaaqday dadkii ooyayey mee nimca meeday way soo dhowaatay aayar soo tallaabsatay qoorka iyo cagta midig ayay mar keli ah soo wadagelisay qolka mugdiga ah ayay dhex istaagtay in yar kadibna ilayska qoraxda ayaa qolka ku baahay markaas ayay aragtay baroorna qabsatay waa hooyadeed iyo saaxiibadaheed sahre iyo hooda markii ay soo gashayba sacab iyo cod dheer ayaa lagu soo dhoweeyey dareenkeedii oo marka hore aad u laaqnaa ayaa iminkana samada tegey hooyadeed ayaa isku duubtay duuf iyo dhareer ku duugtay qalbi aad u qalalay 6dii bilood ee u dambeeyey ayay naxariistii hooyadeed hoos dhigatay nafteeda oo ka luntay ayay hooyadeed ka dhex heshay way sii dayn kari weyday cod la fahmayo kama soo baxayo naqaskuna waa ku qaliil way isla fadhiisteen intii ag taagnayd qosol gariir ayay qaadeen hooyo sow adigan dhuubtay ayay tidhi miyaanad waxba cunin iminkaa naaxi doonaa hooy ayay tidhi kor ayay u soo eegtay waa wejiyo ay u xiistay midba mar ayay isku martay idinka ma kala dhargaynee isuga ayay hoos ugu tidhi qosol iyo wax ooyin u eeg ayay kaga jawaabeen way soo jeesatay nimco ayay aragtay iyada oo ilmada shalmadda ku duugaysa ayay ku tidhi nayaahe waad iga gashatay maanta wallaahi walaal aan jirin ayaad ii sheegtay nimco ayaa madaxa ruxday waxay u raacisay been kumaa sheegin waa mide horta walaalkay ma xanuunsanayo balse wuu yimiday sariirta eeg ayay tidhi najax ayaa sariirta eegtay mise qof ayaa jiifa maryo badan ayaa dushiisa saaran hooyadeed ayaa markiiba tidhi waan soo weysaysanayaaye way baxday najax way fahmi weyday waxa socda zahra hooda iyo maxamed ayaa isku daawanaya labadooda najax waxa ay soo eegtay dhanka nimco wejigeedii ayay ka weyday wax ishaaro ah saddexda kale ayay marba mid eegtay way asqowday haddii aanu xanuunsanayn muxuu la jiifaa walaal ayay si hoose ugu tiri nimco jawaabtii isaga ayaa siiyey wuu soo istaagay maxaa yeelay adiga ayaan ku imiday way eegtay waa najax ninkii ay jeclayd kii ay u silicday waabu sii qurux badnaaday afka ayaa kala tegey sidii ilmo yar ayay khajilaad yaraatay way fahmi weyday waxa dhacaya hadallo isdhaaf ah ayay tidhi iska waran najax naahoodo najax ma fiican tahay mar keli ah ayaa lagu qoslay afka ayay gacanta saartay markaas ayuu hadalkii nimco ku soo noqday walaalkay nimco ayay ku soo jeesatay haddana naamee walaalkaa isaga ayaa u jawaabay waa najaxe oo yidhi waa aniga
intii ay maskaxdeedu qaadi karaysay ayay dhaaftay, intii ay garanaysay ayay dhaaftay, intii ay maamuli karaysay xakamayn karaysay ayay dhaaftay. Sahre ayaa u soo gurmatay. Ma xasuusataa berigii aad naga soo baxaysay? Waanu ogeyn in aad waxbarasho darteed u soo baxayn. Hooda ayaa kala booday. Qofna meherkiisa waxbarasho uma baajiyo ayay tiri. Sahre ayaa ku soo noqotay. Waxaan oo dhan waanu ku sii qorshaynay. Xasan iyo Maxamed waa walaalo, waxaanay ilmaabti yihiin Najax iyo Nimco. Xasan markiiba waxa uu ku keenay Nimco. Nimco ayaa gashay hadalka. Waan xasuustaa sidaad ahayd berigii. Dhowr jeer ayaan isu kaa sheegi gaadhay. Sahre ayaan sii wadatay. Qorshuhu waxa uu ahaa in lagu dejiyo oo aad hesho meel aad ku nasato. Hadhow marka Hooda la guursadana lagu soo celiyo. Hooda ayaa qosashay, hadalna ku tuurtay saaxiibadeed Najax. Ma waxaad moodaysay in aad ninkaaga aniga iiga tegi karto? Waan kaa daba fikiray. Odaygayga Xasan ayaa la idhaahdaa. Xasan kalena ma aha waa Xasan Keenan. Fajiciso ayay ku noqotay oo Najax ismaydaan guursan ayay tiri. Ma ninkaaga ayaan kaa qaadan lahaa ayay tiri hadda. Isaguna adiga ayuu ku sugayay. Maanta labadiinuba doob iyo gashaanti ayaa tihiin. Cid aad isaga uga tanaasusho ma jirto. oo ma lagu guursaday adiga ayay tiri. May khamiista dambe ayuu isoo doonanayaa. La'aanta ma aroos baan dhigan lahaa ayay tiri. Najax ayaa eegtay dhanka Najax. Haddana way ka soo jeesatay. Deedna su'aal ayay weydiisay dhammaantood oo ka warrama haddii aan nin kale halkan ka heli lahaa, qorshihiinu wuu kala daadan lahaa sow maaha. Waa lagu wada qoslay mar keliya. Maxamed ayaa markii u horreysay hadlay oo yidhi, oo aniga shaqadaydu maxay ahayd? Yaabkii adduunka. Anigu adiga in aan ragga kaa mashquuliyo ayay ahayd shaqadaydu. Waaba indha adaygii awla taagnaa salaanta albaabka. Iyadoo aan isoogeyn ayay qosol ku dhufatay oo naayaahee Nimco, reer aad ka soo baxsatayba ma jirtee, ma anigaad riwaayad ii jilisay ayay tiri. Nimco ayaa ku qosashay. Najax, wallaahi daacad baa tahay, wax kasta waad iga rumaysatay. Jaamacadda waan dhammeeyey oo meeshaba adaan kuu joogay. Halkaa marka ay maraysa ayay Najax hooyadeed ku soo noqotay qolka. Hooyo diyaargalowdee beri ayaynu noqonaynaa ayay ku tiri. Way yaabtay se faraxday. Aabbahaana wuu ku sugayaaye. Hareeraheeda ayay eegtay. Idinkuna hooyadeed ayaa ugu jawaabtay, waa la iswada raacayaa dhammaan. Tigaradii waa la gooyey mar hore. Hooda arooskeeda waa in aan shaqadiisa bilowno. Sijaayad iyo dhiiba hooyo. 6 toddobaad kadib iyo magaalada Hargeysa 4 toddobaad ka hor ayay isguursadeen Hooda iyo Xasan. Sahre iyo Maxamed meherkoodu waa bisha dambe. Najax iyo Najaxna caawo ayay aroos yihiin. Laba waji oo dhalaal ka muuqdo, indho iskood u dhoola cadaynaya. Ehel iyo xigaal ayaa hoolka buuxiyey. Farxadooduna dadka ayay wada gaadhay. Waa Najax oo garab taagan Najaxii ay jeclayd, gacmahana is haysta, duniduna hortooda wadhan tahay.